sanadka ugu dambeeya ee wadanka Soomaaliya doorashadu waa xilli kala guur lagu jiraa wax muddo qiyaastii hal sano ka yar ah dawladnimadii u dhiman dawladdan Xasan Sheekh dhinac doorasho qof iyo cod ah ay doorashada ay dawladdu wajahaysaa oo in dadkii codkooda ay dhiibtaan oo maamuladii deegaanadii la gaaro dhinac maamulo cusub ka soo biiray sida hadda waqooyi bari Soomaaliya oo kale oo laftirkeeda lagu wada sida qorshuhu yahay in ay registration-ka mar dhow bilaabaan dhinac guux baa ka jira Jubbaland marka la yiraahdo waqtigu waa xadadan yahay sidee waxa soo dhan oo socda lagu guuleysan karaa bismillahir rahmaanir rahiim xamdi waan mahadsantahay mar kale horta Soomaaliya inay ka dhacdo doorasho cod iyo qof ah arrin wanaagsan waaye maxaa yeelay qofka يعني وينو دورتا قفك مثلية قفك السياسي كمثلية إنه دورتا له بهنية مركا سوماليدا مدة سي ودنك وبربري ولي كما يدعي دور الشقف قد يعفه وحقود بيسي دولة دي رأيت كهي رنتي وقامنا يا الله ونحديث تمد حين عبد الرشيد علي شرماركي مركا مثلا حسن ورأي في عنواي لكن نسيق سوء دون يوحيتهاي أنا إنسان أفهمي inuu qabto doorasho cod iyo qof waqtigu dhimanna waxa weeyaan waqti aad u yar waay marka su'aasha Sweden waxay tahay doorasho cod iyo qof ma ku qaban karaa muddo sanad gudahooda ayadoo ognahay doorashadu inay u baahan tahay yani abaabul xoog leh oo logistic fara badan registration oo la sameeyo yani waxa weey constitution in la isla garto boundary yani ninka yani MP-ga ah ama baarlamaanka soo galayo meeshuu ka soo galayo يبين بورد اللي مثلا هديتها يعني مش لقى دورنا قرضتها كل كسوقات يعني نوث قرض يعني وقوي قرض كونفريت قرض يعني وحويان قرض معناها قلبيت قرض بري يصير أفر كسوقات يعني كسوق لين أفر معناها يعني أفر يعني كرسي أفرت كرسي مركا وين بورد هذا بين عيمين هدنا مركا حصر أمرقوا قبان كرا جابته ما يويان جابته ما يهال سوى ذاك تيسلو قبته unless يعني حتى وضمده وينكم ما قبان كران electric body وسمينا واسكو هيستعد نفتكيده يعني ورنتي يعني بوق بدل با كتاغن registration نفتكيس يعني وحاوي بوق بدنا كتاغن waxa soo idan markaad fiirisid muddo sanada mu xalin karaa ma jawaabto ma weyn laakiin wadankiin uu aad cod iyo qof arrin fiican waay waxaad wanaagsan runtii oo qofka Soomaaliga loo ogolaado ama gabadha Soomaaliga loo ogolaado qofkay dooranaysa in ay doorato qofka yani mathalaya in ay doorato loo baahan yahay taa marka waxay keentay marka istaraatiijiyadiisa marka maxay tahay waa saan ka fahmay istaraatiijiyadu waxa weeyaan in macna yani uu sameeyo yani registration uu sameeyo banaadir uu ka bilaabay kadib gobolada macnaha dawladda ku xiran in ay iyagana sameeyaan sida Hirshabelle Galmudug yani South West State of Somalia ama koonfur galbeed haddana waxaa la sameeyay yani waxa loo yaqaano waqooyi bari gobolka waqooyi bari yani state-ka waqooyi bari naftiisa wuxuu ku dhawaaqay in registration-ku sameeynayo kadib gobol yani gobolkan Jubbland arkay dhibaato isna ka taagan oo hadda yani waxa la leeyahay meelaha yani dawladdu ay raacsan yihiin sida yani goboladan gada iyo in la sameeyo loo yaqaan New Juba State in la sameeyo oo marka doorashadii marka adi hasan ku darsado kadib marka saad doorasho lagu galo habkaas horta anigu fahmay inay yani wax u socdaan in macna waxa weeyaan yani hadda waxaad moodaa runtii inuu hantay dhowr gobol madaxweynaha maartay inuu sameeyay electoral commission-ka asaga dooran lahaa inay jiraan gobollo ama isteedyo asaga raacsan oo runtii policy-gaas ku raacsan ay jiraan يعني هذا ودركيسي قبل كان يعني وقوية بري هذا السمية ويكون واقعين إن registration كلا سميه إن للسمية معناه وحويان إن محوها ID كلا سميه ID معناها وقرن national ID كما يعني وقد يقون سك قرن كلا سميه إن للسميه ورقدي معناها يعني دور الشغل السميه وحاسو إذا الوحويان يعني وتوابا شو قادن كرت مركي ويرتا لبا سنه قادن كرت marka waxa isleeyay madaxweynaha halka sano hartay inuu hal sano kala ku darsado raba kadib marka doorasho wadanka la qabto cidaba ku soo qasama ku soo baxo oo xisbigiisa ku soo baxo ama cid rabta ku soo baxo mid kale waxa weeyaan maxamed darto xisbigiisa aad u balaariyay hadda fiiri marka soo qaadatid yani muxuuha galmudug ninka xukuma xisbigiisa waay Hirshabelle ninka xukuma xisbigiisa waay محوها لفت قرن حسبي سواي أو كفر قبل حكومية فرليو هذا سنة حكومة دونه يعني سنة حتى بحكومية ودرسوا قصاب حي حسبي وحوي يعني حسبي UDP وسجوا بالحين هذه مركب الحين هذا هو يعني
constellation power waxa loo sameynaya macnaha yani waxa weeyaan yani wuxuu isku ballaarinaya yani xisbigiisa wuxuu isku ballaarinaya macnaha waxa weeyaan gobolada wadanka marka inuu soo saaro gobollo marka dawladda friendly la ah oo marka yani policy-ga dawladda marka hirgelinayso oo birna cod looga xisaabtan marka taasa marka keenaysa marka waxa weeyaan in macnaha yani door oo rajisinaysa madaxweynaha inuu qabto doorasho cod iyo qof ayadoo runtii yani waxyaabo badan asaga mucaaradka isku diidan yihiin yani mucaaradku waxay ku dhaleelayaan waxa kamid ah dheelashay keenayaan mid ugu wareys waxa weeyaan yani guddiga doorasho asaas ma leeyihiin ay dhiigan la sameeyay meelo badan macnaha waxa weey ma ogola mid kale waxa weeyaan doorashadu waxay leeyihiin muddo sanad gudahooda kuma dhici karo waxay leeyihiin sanad ka bacdi madaxweyne sax ma aha legitimate baan ay ku leeyihiin marka waxyaabahaas ay ku doodayaan mucaarad ku doodayaan waxa ku haray marka hadda wuxuu ku guuleystay inuu sameeyo gobolka la yiraahdo yani north east state of Somalia ku guuleystay madaxweynaha inuu wad sameeyo oo runtii hadda darkiis yani in yani madaxweyne firdhiyo ku soo baxay taa mid weeyaan waxaa kaloo rabaa inuu sameeyo new Juba state rabaa inuu sameeyo yani maxaa yeelay gobolka hadda Juba yani muddo 14 sano madaxweyne Axmed Xasan Islaam uu xukumaya marka asaga iyo xasanna ma wada shaqayn karaan saan qiyaasay oo aad bay isugu dhacsan yihiin marabalaha waxa isleeyahay wuxuu rabaa inuu sameeyo waxa loo yaqaan new Juba state oo gobolkan Gado la yiraahdo ka sameeyo ilaa ay maartay yani Gado oo ilaa 7 degmo ah gobolada ay nimanka shabaabka haystaan oo runtii ayagana yani waxa weeyaan oo Buale iyo Jilib iyo ilaa xeebaha inuu soo furo nidaam noocaasna uu runtii waa ka muuqataa qabadiisa ka muuqataa oo marka uu sameeyo gobol uu soo saaro friendly la ah dawladda friendly la ah uu soo saaro marka waxyaabahaas oo isbarkan ayuu madaxweynaha riixaya mana garan karo waxa meesha ku dambeyn doonto koos waxa yani program yani runtii yani waxa weeyaan khilaaf badan uu ka taagan yahay yani saluug badan uu ka jiro sidoo uu socdo marka I don't know yani si uu hirgeli doonto laakiin nidaamkaas hadda ku wada marka gobolada hadda cusub la sameeynayo waxa ka fiicnaan lahayd inuu Juba sameeyo waxa ka fiicnaan lahayd inuu heshiisiyo yani dadka iska soo horjeeda gobolka Juba oo marka Juba macnaha loo sameeyo macnaha waxa weeyaan yani dib u heshiisiin ay ka dhacdo ayaa ka qurux badnayd maxay tension ay abuuraysaa hadda gobolkan Juba lagu adkaysta new Juba la sameeyo lagu adkaysta tension xoog leh abuuraysaa khilaaf badan bay abuuraysaa taana ma fiicna marka deganaanshaha ma fiicna yani Soomaaliya ma fiicna deganaanshaha Kenya ma fiicna deganaanshaha Ethiopia ma fiicna marka waxa fiican in yani laga fikiro in macnaha yani wax heshiis lagu amaashay ka soo baxaan taas aad iyo aad u qurux badan waayahay haddii ay dhacdo in gobol kale la sameeyo new Jubadaas ah shalayna waqooyi bari la sameeyay maamulo hore u jireen tallaabooyinkaas intuu madaxweynuhu hirgeliyo maxay taariikh ahaan u noqonaysaa horta madaxweynaha haddii uu hirgeliyo yani gobolkan north east state of Somalia ama gobolka waqooyi bari Somalia hadduu hadda yani waxa weeyaan uu ay hirgasho waa taariikh uu ka tagay dad muddo ku taamayay inay gobol maamul gobol samaystaan laba gobol ah isku tagay inuu marka yani runtii uu sameeyo gobolkaas waxa weey waa legacy aad u fiican weeyaan taa marka waxay keenaysaa madaxweynaha inuu noqday marka madaxweynaha ugu horeeyay ku dhiiraday oo macnaha gobolkaas oo muddo badan xasarad ay ka taagnayd mar ayaga iyo Somaliland isku dhacayeen mar ayaga iyo Jubaland isku dhacayeen xasaradaas inuu maartay dajiyo oo gobol ayaga ay leeyihiin oo soo saaro oo waliba unionist ah gobol unionist macnaha waxa weeyaan oo doonaya Soomaaliya midnimada doonaya inuu soo saara wallahi arrin lagu amaani karo taayda taa aad baa lagu amaanay madaxweynaha waana legacy uu ka tagay kimida madaxweynaha maartay waayahay waraysigii ka horeeyay oo arrimaha Puntland aan ka hadalnay falcelin badan ka timaaday dad baa hadalkaaga u fasiray in aad ku xadgudbayso xuquuqdii dadkii dhalinyarada ahaa ee meeshaas ka dagaalamay dhiigooda su'aalaha ka soo laabtay sidee kula muuqataa horta xamdiyey Soomaalida waxay tiraahdaa hadalna qof hadal si uu yiri qofna si u qaaday hadal si baa loo dhahaa qofna si baa u qaadanaya waa margiyo kale waa margiyo hadduu yani meel u jidba horta waxaan rabaa inaan warkaa inaan caddeeyo aad bay runtii muhiim u tahay runtii dad badan ayaa ila soo xiriiray oo runtii ama saaxiibaan nahay ama yani intellectualist oo macnaha academic
ama politician oo dad macna politician elders dad macna elders macna waxa weeyaan odayaal oo runtii aad loo qadariyo dad culimo oo runtii wadanka aad looga jecel yahay inta way la soo xiriiraan runtii waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay runtii inuu imaaday muxuu ahaa nin la yiraahdo Dr. Maxamuud Yusuf nin la yiraahdo iyo Cabdirasaaq Jiir oo runtii aad u wanaagsanaa jaamacadda miya محمود دكتور محمود شيخ محمود يوسف وننكا يعني أساسي جامعة إيست أفريكا يونيفرسيتي كنت على بوساسو يونين مفتي عنه اللي قانون ودنك اللي قانون اللي الشيخ محمد عثمان على سو من اللي هذا عبد الرزاق جير ورنتين هذا في عنا سنا مارتي أيضا مش جوا حتى بقر برهان نفتر كيسا وأدبا وضع ضلني marka wada runtii aad igu weyn aniga aad runtii igu weyn oo aad u qadariyo dad badan politician runtii oo wadanka aad ugu qadariyo marka waxaan rabaa markii inaan arintan si fiican u cadeeyo horta alxamdi dhalinyarada askarta ee maanta ka dagaalamaysa Puntland ee dalkooda difaacaysa ee runtii naftoodii iyo karaamadoodii u huray inay dalkooda ku difaacaan ayagoo ka difaacaya dad mujrimiin ajaanib oo macnaha wadamo kale ka yimid oo wadamo kale macnaha ajaanib ka soo duulay inay dalkooda maanta u huraan naftooda u huraan waa arrin runtii aad iyo aad loogu amaana waana arrin runtii aan leeyahay maxay ahaydey dhalinyaradaas dagaalamaysa ee naftooda hurtay ehelkooda iyo ayagaba iyo saraakiishaba horta hambalyan u diraya waxaan leeyahay waadan garab taaganahay oo hadal ay si qalad u fahmeen hadalka saxda kan weeyaan runtii yani waxaan leeyahay waadan garab taaganahay waana runtii dadka aan maanta xuquuqda u doodaya ka aad kamid tihiin waxaan leeyahay marka dadka siyaasiyiinta ee hadalkayga xanafta u yeelay ee ku qarinayo dhibaatada uu runtii ka wada yani muxuu ahaa maamulka yani Puntland yani uu ka wado Suudaan uu ka wado oo uu ka wado Suudaan taariikhda ayaa runtii garsoor noo noqon doonta taariikhda ayaa garsoor noo noqon doonta taariikhda ayaana sheegi doonta run ahaantii in waxa ay samaynayaan ay yihiin wax ka baxsan qiyamka iyo akhlaaqiyadka iyo soo jireenka iyo sooyaalka Soomaalida wax ka baxsan yihiin oo dad muslimiina waxba ka galabsan yani dad Soomaaliyeed yani caawimay yani runtii gargaar u fidiyay oo waxbarasho xilli Soomaalida aad u kala daadsan tahay in dalkaada yani looga daabulo macnaha waxa weeye misanis looga daabulo waxa weeye taariikhdaas waxa weeye dadka maanta ku taageeraya madaxweyne Siciidan iyo arintaas iyo aniga taariikhdan kale ayaa kala qori doonto taariikhda ayaa noo kala qori doonto laakiin madda ay leeyihiin Cabdiwahaab wuxuu raacay macnaha yani dhalinyaradii macnaha dagaalamayay ayuu marka yani waxa weeye runtii uu dafiray leeyihiin oo Daacish kala saftay taa hadal been oo runtii yani waxa weeye lamarin habaabi weeyaan walaalahay wali aniga si gooni waxaan ula hadlayaa saraakiisha dagaalamaya waxaan si gooni ula hadlayaa qoysaskooda waxaan si gooni ula hadlayaa dadka macnaha wanaaga wada runtii aan inta badan la soo xiriiray waxaan u cadeynayaa dadka inaan garab taaganahay maamulka iyo ciidanka kala qaaday maamulka ciidanka shaqo isku malaha waliba xataa wax kale iska daa mushaarkooda ay ku dhibayaan dadkan dagaalamaya mushaarkooda ay ku dhibayaan runtii waxaad leedahay marka maamulka shaqooyinka u wada ciidamada lama socdaan bay wala socdaan oo runtii yani waxa weeyaan ciidanka maamulka hoos imanaya laakiin xuquuqdii aan ka rabnay inay siiyaan wali ma dad badan runtii yani wareys badan dad badan waan wareystay runtii wayna ka muuqataa marka dadkaas aan u doodayay Professor Madaxweyne Siciid Cabdullaahi Dani shalay wuxuu u tartamay wadanka Soomaaliya inuu madaxweyne ka noqdo waa nin siyaasi oo xilal horan uga soo qabtay haddana waa madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland bari doorashada soo socotana waa nin u diyaarsan inuu ka qayb galan rabaa asaga uusan ka bixin dowladda Soomaaliya asaga wada shaqayn labadii maamulka iyo dowladda kama dhaxayso dadkaasna xuquuqaadkii dowladda ay ku lahaayeen waa u baahan yihiin maxay tahay horta caqabadaha jiro xasan shalay dadkii codka siiyeen uu ka mid ahaa oo soo saaray maxay isku haystaan horta madaxweyne Cabdullaahi Dani
shalay xukuumaddii ka horreysay xasan sheekh dadkii riday buu ku jiray oo runtii yani publicly u sheegay in farmaajo uu ridayo waana runtii waxyaaba baastanaad asiga farmaajo u dhexeeya hayaan ninka shalay u waday iyo maanta asagana waa la kala hayaa ninka shalay asaga u keenay oo xasan sheekh ah asaga maanta waa la kala hayaa aniga xasan iyo dani waxa isku hayaan siyaasad weeyaan laakiin waxyaabaha aan dani ku haysto taas ma baahan wax ka weyn waayo saddex shay oo nin siyaasi Soomaali uusan samaynin ayuu dani sameeyay oo dadka Soomaalida ee siyaasiyiinta ah ama dadka Soomaalida ee macnaha siyaasad ku soo jiray waqtiga wadanka xornimada qaatay ilaa maanta ayna dhicin ayuu dani ku dhiiraday inuu sameeyo mid waxa weeyaan waa ninka ugu horreeyay ee Soomaali ah oo siyaasi ah oo xukun haya ee u oggolaaday dhul Soomaaliyeed in laga sida ay ku eedeynayaan xuquuqda bini'aadamka xuquuq aadanaha u dooda sida ay ku eedeynayaan intelligence report ka soo baxa sida loogu eedeynayo sida wargeysada ay qorayaan sida dadka researchka ay qorayaan waa ninkii ugu horreeyay ee Soomaali ah ee dad missionaries ah u oggolaaday inay yani wadanka yimaadaan oo laga daabulo oo wadan kale oo Soomaaliya walaal ah ama saaxiib la ah la geeyo taariikhda Soomaalida ma dhicin xataa Soomaaliland ma sameeyeen Soomaaliland oo macna doonaysa inay gooni u go'do waxaan kala weeday ma sameeyeen waa ninkii ugu horreeyay sida sheegayaan warbaahinta dunida sida ay sheegayaan intelligence report ku soo qorayo sida ay qorayaan macna waxa weeyaan yani maqaalooyinka yani artikelada qaar ay qorayaan waa ninkii ugu horreeyay ee raadaar ku rakiba macna yani Israa'iil ay leedahay yani lagu ku rakiba macna yani wadan Soomaaliyeed oo markaa yani lagu martagareynay xoodiinta lagu martagareynaya waa sida ay qorayaan macna yani warbaahin dunida qoraysa waa ninkii ugu horreeyay waxa sameeyay waa ninkii ugu horreeyay ee Soomaali ah ee siyaasi ah ee diyaarad يعني حكومتي سايسن اوغلين wadanka u fasaxayna soo gasho wadanka marka waxyaabaha aan dani ku haysto waxyaabaas waa oo saddexda shay oo haba yaraatee yani ay ahayn qof Soomaali oo siyaasi inuu ku dhiirado wanagan ku dhiiraday laakiin waxyaabaha localka ayaga dhaxda u dhaxay asaga xasan u dhaxay asaga yani iyo brots u dhaxay taa yani waxa qiimo weyn oo adigu marisnaaniga waxa ay qiimo ugu dhisnaa maaha laakiin tan waxay keenaysaa bagaxumay keenaysaa taariikh xumay keenaysaa abni xumay keenaysaa oo dadkii walaalahay ahaa oo dhulka deganaa abnigoodii iyo ayaa qatar gelin karaa marka taasaan horta waxaan ku haystaa weeyaan midaan walaakii ku haystaa oo runtii aan ugu xumay taa weeyaan laakiin uu tartamo oo macna xisbi samaysto oo xukunka u qabto taas Soomaaliya u taala laakiin saddexdan shay ayaa lugta ugu xiran saddexdan shay ayaa lugta ugu xiran oo doonay inuu maanta Soomaalida uu ka garbaxa loo baahan yahay oo nin siyaasi uu ku dhiiradeen xataa kuma dhiirinin nimanka maanta yani xukuumay Soomaaliland xukuum kuma dhiirin waxa asagu ku dhiiraday kuma dhiirin ayagoo dhahay wadanka ka go'an ku hay wariba waxay ilaalinay fiir walaal nimanka xuduudiinta waxa ka baqay nimanka la sheegay Djibouti 20 kilomitir isu jira basalig military meesha ku yaala oo Mareykanka leeyahay xasaasi madaxweyne Ismaaciil Cumar Galwaa diiday in meesha laga duulo muxuu diiday dadkiisa u naxaya marka taas oo madmada keentay oo runtii aniga aad u caroonayo laakiin ma ahan markaan dhabta ku sheego yani arintan hadda anigu eedeynayo yani Daesh la tashluuleeyahay ma ahan arintaas saddexdan arimood ayaa loo baahay Maxamed yani madaxweyne Said Abdullah Deni Umar Saaro Professor Cabdiwahaab si weyn aad uga hadlashaa arrimaha gobolka oo dhan wadanka Soomaaliya ciidamo Masra ah imaanaya ciidamada Masaarida Ethiopia awalba dhinacay wadanka kaga jirtay labadooda laftirkooda saameyn intee leeg ama gobolka ku yeelanayaan ama Soomaaliya dhexdeedii wada shaqayntoodii horta Masar waxa weeyaan waxay ku imaanaysaa African Union ciidanka ATMIS markay imaanayaan mandate African Union ku imaanayaan tirada imaanaysana waa tiro kooban oo badnayn meesha la geynayana waxa go'aan ka gaaraya African Union go'aan ka gaaraya zoonka la geynaya African Union go'aan ka gaaraya
إثيوبيا جيبوتي يعني إيجيبت waxay ka tirsan yihiin African Union marka African Union ciidankan oo nabad ilaalinta ah ee uu keenay mandate-kooda Addis Ababa lagu xukumay Qaahiro laga xukumay markuu horeysa dadkii qalad u fahmeen oo iyana oran yani waxa Masar meesha la keenaya Ethiopia macnaha ka duuleysa macnaha daamka burburinaysa waxaas waa sheeko waxa weeyaan waa sheeko macnaha yani oo iska yani dadka caadiga iska sheekeystaan ciidankan waa ciidan process ku yimid waay mandate ku yimid waay African Union hoos imanaya yani waxa Addis Ababa hoos imanaya marka ciidankan ciidan oo African Union ila dawaya marka in la yiraahdo macnaha yani tension ay abuuraysa waa wax la bambuuni weeyaan wax ka jira malaha Masar iyo Soomaaliya waxay leeyihiin xiriir soo jiran bay leeyihiin aad u fog ciidanka hadda ciidanka Soomaalida yaa sameeyay yaa dhisay Masar aa dhistay ciidanka Soomaalida markii Allah yarxamada Cabdishiid Ali Sharmaarke oo ka imaaday prime madaxweynaha oo ka imaaday soo prime minister oo ka imaaday America wuxuu soo maray Jamal Abdi Naasir ayaa marka runtii ciidanka ugu horeeyay qalabeeyay ciidanka ciidanka Soomaalida qalabeeyay isaga ayaa si diyaaradii ugu horeeyay oo dadka ciidamada lagu daabulo isaga si gawaarida gaashaana ciidanka ciidanka lahaa marka xiriirkaas soo jireenka ka dhaxeeya Masar iyo Soomaalida marka in la yiraahdo macnaha waxa weey Ethiopia macnaha ay tiraahdo yani Soomaali ma iman karta yani maxaa ma iman karta Ethiopia ciidan Masari ah waxa weeyaan waxay malgadac ku tahay qaranimada iyo xorriyadda dadka Soomaalida ay qiimo ku tahay marka taas waxa weeyaan waxaan u maleynayaa waa iska wax la bambuuriyo waaye Soomaaliya dawladda marka laga hadlo dawladda marka laga soo tago mucaarna waa jiraa oo dad siyaasiyiin ah oo madaxweynayaal soo maro ra'iisul wasaare soo marayo waxbay ka biyadiidan yihiin dawladduna shaqay wadaa laftirkooda waa dad muuqdo aan la iska indhatiri karin inkastoo qaarkood ay ka soo baxeen oo dawladdii ay ku biireen talada mucaaradka mararka qaarkood waa inuu wax dhisaa ودولدنا واحد اسمها سيكون فائدة سنة إنه واحد دمية معارضة لفتر كذا معنا كم لهن سدا يجي لفتر كذا اللي سووا علين كرا واحد وده جرا معنا لو ودن كي درسدي فرت معارض هذه دليلين معارض تكون حلوة بهاي واي طق وحيسمع حلوة تشيك أم بالانس يسمينها هدو معارض جيرين مدحينا حروب اسمينها وسنت مدحينا وضد معارض وجرا وحوق إنه كعب سنة جت واحد جرا واي لكن لما كان معارض كي مدحين حسن ويس الهايين شري أيها وده السعودية أيها شري يعني وحويان يعني دون أي كرسي قبطان حسب باكو صباحي هات لكن إني مدحين حسن وحواجب كوا إنه كريه شيء قاب الدورشة دعيسة وقت جاي الدورشة دعيسة إيو إني تاي عود يقف إني تاي إني الدورشة ضد بنتاي مدحين حلو بين النقض نين ضد كأسوكين أيو dalkan waa dal runtii la isku kabaya oo runtii dad kale irdhoobay oo hadda la isku kabaya way marka waa in la isku celceliyaa oo la isku kabaa marka madaxweynaha marka waxa loo baahan inuu la fariisto oo si yani oo daacad ah oo open ah oo macnaha nimankan u qanciyo nimankan waxa ay loo baahan yahay inay noqdaan niman mucaarada wax dhisaya fida dunida aan ku noolnahay waxa loo yaqaan constructive criticism fa banaanta inaad macnaha yani qofkan yani criticism wax ku saxiisid way banaantahay laakiin yani inaad macnaha yani qayb ka noqoto dumin wadan hadda soo dhisaayo oo la soo kabayo oo la soo keenayo in mucaaradku qayb dumin ka noqdo oo loo adeegsado inuu dumiyo yani wax sax ma barnaamijka ay wataan oo doonayaan dalka inay ku hogaamiyaanna waa inay soo bandhigaan ayaga naftikooda waa inay axzaab leeyihiin oo xisbiga uu leeyahay manifesto leeyahay manifesto markuu soo bandhigo uu leeyahay waxaan qabanay wax ka duwan waxa uu ninkan qaban lahaa warkood inuu san ku koobnaan xasan waqtigiisa waa dhamaaday yani hal adiga waqtigiisa kaaga dhumin shakhsi xukun haya isu waqti kaaga dhumin ninkan waqtiga hadii la gaaro ama doorasha lagu saaraya waxa weeyaan oo xukunka looga qaadaya ama abuu ka guuleysanaya xukun ku soo noqonaya taa ma mid noqonaysa waqtiga soo xiray laakiin waxa loo baahan yahay adiga wixii ninkan xukunka looga qaadi lahaa inaa la timaadid oo dadka Soomaaliyeed ugu qancin lahaa beta alternative inaa la timaado waxaan wada aniga qof walba waxa badeecadiisu ma shakeenaya marka badeecadaada keena marka adiga oo qanci u bad Soomaaliyeed qanci ku qanci macna waxa ninkan wuxuu wada inay qaldihiin oo tooda ay sax yihiin
laakiin hadday noqoto yani midi ku tuug yani waxa personality politics personality politics wax fiican ma hadda xasan iyo maxaa isku hayaan deeri maxaa isku hayaan waa personality politics weeyaan waxaa farqi u dhexeeya ma laha waxyaaba runtii aan aad u jeclaystay manan yani sheekaysanayn sheekh maran sheekaysanaynay aad u sheekaysanaynay mana yani boqor burhaan runtii waa nin muwaadin Soomaaliyeed runtii aad u qiimo badan wuxuu yiri inta aniga nool ayuu Soomaali ma kala tagayso u dhahay ereygaas erey aad weyn waay Soomaali ma kala tagayso intaan noolahay haddaan inta uu yiri seerama haya sharri buntran laakiin intaan noolahay dadka lama qaybinayo yani hadalkaas hadal aad qiimo badan buu ahaa marka yani dadkaas waa dad doonaya wadanka inay yani midayaan doonayeen ba xal isku haystaa marka politics xal isku haystaa marka waxa la beenay in la saxal raa marka oo noqoto marka statement noqoto dadka marka uu yirto marka aad saxdid soo xigta waa nafri wala la nafriistid yani taabid weeyaan Soomaalidu xugma maada walaalka haday canuftaadu gaarto gacantaadu la jirto waayahay maxay isku hayaan madaxweyne Axmed Maxamed Islaam iyo dawladda fiiri madaxweyne Axmed Maxamed Islaam iyo dawladda hadda waxay isku hayaan dawladdu waxay rabaan inay sameeyso wax loo yaqaan New Jubaland State oo laga garab dhiso maadaama Xasan iyo Madoobe ay wada heshiin waayeen wada shaqeyn kari waayeen marka madaxweyne wuxuu ku fikirayaa marka Xasan inuu sameeyo yani New Jubaland State oo macna gada iyo bu'aale iyo jirib isku yani ay iswataan marka kadib uu sameeyo marka parallel state uu sameeyo oo dawladda marka qaadanayo oo dawladda macna waxa way raacsan waa saan igu fahmay waa aniga my own understanding Madoobena wuxuu diidan yahay Jubaland in la kala gooyo maamulka laga dhiso horta waxay isku haystaan min labada shay weeyaan waxay isugu iman laayihiin oo ay runtii u dirisiir waa inta weeyaan sida kaliya ee arinta loo gudbiro waxa wada hadal weeyaan waa in la heshiisiyo Madoobe iyo madaxweyne Xasan oo marka lagu heshiiyo wax cad oo marka gobolka aan la kala gooynin oo gobolka hal gobol uu noqdo taas horta aad u qurux badan maxaa yeelay hadii maanta gobolka la sameeyo hadii ku kala soo baxo gobolka noos bay leeyihiin marka waxay noqonaysaa marka tusbax go'ay noqonaysaa meesha marka waxa fiican in labadan gobol halkan gobol si fiican la isugu hal gobol laga dhigo laakiin heshiis lagu yahay waxa la sameeynayo marka taas ayaa aad iyo aad u qurux badan taas marka waxay isku hayaan labada maamul waa inta kaliya weeyaan dawladda banaanka ka joogtaa warna kugu seegana aadan u falanqaysaa siyaasadda Soomaaliya iyo guud ahaan gobolka oo dhan saano kala dawladii ka horeeyay uga soo hadlaysay dawladdan hadda waqtigeedii waa gabagabo maxaa isleedahay taariikhahaas lagu xasuusan karaa oo kuwii hore uu kaga duwanaa bari ka maalin ama hadii xilka uu ka dago hal shay hadii uu Xasan ka tago waa lagu xusuusanayaa gobolkan hadda uu sameeyay North East State of Somalia arrin fiican waa arrin lagu xusuusan karo weeyaan hadii Jubaland uu dajiyana waa arrin lagu xusuusan karaa oo dajiyo hadii wadanka doorasho cod iyo qof u gaarsiina waa laga sii lagu xusuusan karaya marka saddexdan laga soo ka taga Xasan wax weyn waay